Maxamed Saalax waxa uu shaki la'aan ka mid ahaa mid ka mid ah saxiixyadii ugu saameynta badnaa taariikhda casriga ah ee kooxda Liverpool iyo guud ahaan horyaalka Premier League. Tani markii uu ku soo biiray Anfield sanadkii 2017, wuxuu kooxdu ku hogaamiyay guulo waaweyn isagoo jabiyay rikooro badan. Haddaba daawade, nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalkan. Waxaan si faahfaahsan u soo qaadan doonaa 10 dhacdo ee ugu weyn ee uu Maxamed Saalax ku reebay qalbiyada taageerayaasha Liverpool, kuwaas oo ka dhigay mid ka mid ah halyeeyada ugu waaweyn ee abid soo maray garoonka Anfield. Hase yeeshee, is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad, xilli ciyaareedkiisii koowaad ee lahaa rikoorkii cajiibka 2017-2018, Saalax wuxuu Liverpool ku soo biiray isagoo shaki badan uu ku hareeraysan yahay kadib waayihiisii fashilmay ee Chelsea, laakiin wuxuu dhigay rikoor cajiib ah isagoo dhaliyay 32 gool horyaalka Premier League markii uu horyaalku ahaa 38 kulan. Bandhigaas wuxuu calaamad u ahaa dhalashada halyeey cusub oo ka dilaacay Anfield. 2. Goolkii finaalka Champions League 2019 kadib markii uu si xanuun badan ugu dhaawacay Sergio Ramos finaalkii 2018, Saalax wuxuu si xooggan ugu soo laabtay finaalkii 2019 ee ka dhacay Madrid. Wuxuu daqiiqadii labaad ee ciyaarta gool kulaad rigoor ahaa ka dhaliyay kooxda Tottenham, kaas oo wadada u xaaray in Liverpool ay ku guuleysato koobkeedii 6aad ee Champions League. 3. Goolkii Manchester United iyo dabaaldegii caan baxay 2020 kulan ka dhacay garoonka Anfield bishii Janaayo 2020, Saalax wuxuu dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyay kadib caawinaad cajiib ah oo uu ka helay goolhaye Alisson Becker. Dabaaldegii uu maaliyadda isaga siibay iyo sawaxankii taageerayaasha ayaa xaqiijiyay in Liverpool ay u dhawaatay koobkii horyaalka oo ay 30 sano sugayeen. 4. Goolkii uu ka dhaliyay Manchester City bishii Oktoobar 2021 ee ka dhacay garoonka Anfield. Maxamed Saalax wuxuu ahaa mid muujiyay tayadiisa caalamiga ah. Wuxuu si sixir ah u dhex maray difaacyadii City isagoo xagal adag ka dhaliyay goolhaye Ederson, goolkaas oo loo doortay kii ugu quruxda badnaa xilli ciyaareedka Goal of the Season. 5. Saddexleydii taariikhiga ahayd ee Old Trafford 2021, Saalax wuxuu noqday laacibkii ugu horeeyay ee taariikhda saddexley ku dhaliya garoonka Anfield isagoo marti ah. Kulankii taariikhiga ahaa ee Liverpool 5-0 ku xasuuqday Manchester United waa haween ay taageerayaasha Liverpool had iyo jeer ku qosli doonaan. 6. Noqoshada gool dhaliyaha ugu sareeya horyaalka Premier League ee Liverpool 2023. Bishii Maarso 2023, kulan ay Liverpool 7-0 ku xasuuqday mar kale Manchester United, Saalax wuxuu dhaliyay goolkiisii 129aad ee horyaalka Premier League isagoo dhaafay halyeeyii kooxda Robbie Fowler si uu u noqdo gool dhaliyaha ugu sareeya taariikhda Liverpool ee horyaalka Premier League. 7. Saddexleydii ugu dhaqsiyaha badneed ee Champions League 2022, ciyaar ka tirsaneyd wareegga guruubyada ee Champions League oo ay la ciyaareen kooxda Rangers, Saalax wuxuu bedel ku soo galay qaybtii dambe ee ciyaarta, wuxuuna dhaliyay saddexley muddo 6 daqiiqo iyo 12 ilbiriqsi gudaheed, taas oo noqotay saddexleyda ugu dhaqsiyaha badneed taariikhda tartanka Champions League. 8. Saameynta saddexda afka hore ee cabsida lahaa ee loo soo gaabiyo MSF, Saalax wuxuu udub dhexaad u ahaa mid ka mid ah saddexda afka hore ee ugu khatarta badnaa taariikhda kubadda cagta casriga ah, isagoo ka soo garab ciyaaray Roberto Firmino iyo Sadio Mane. Isfahamkooda iyo goolashii ay dhaliyeen waxay argagax geliyeen difaacyada qaaradda Yurub oo dhan. 9. Rikoorka waxqabadka joogtada ah, Saalax waxa ugu weyn ee lagu xusuusan doono ma aha oo kaliya goolasha kulamada waaweyn ee waa joogteyntiisa cajiibka ah, isagoo dhaafay 200 oo gool oo uu u dhaliyay kooxda. Wuxuu noqday ciyaaryahanka kaliya ee xilli ciyaareed kasta keena 16 gool iyo caawinaad labadaba, isagoo mar walba diyaar u ahaa kooxda xitaa xilliyada adag.
taban saameynta bulsho iyo dhaqanka garoonka dibaddiisa. Heesta caanka ah ee The Egyptian King oo ay taageerayaasha Anfield ugu heesaan si wadajir ah waxay astaan u tahay jacaylka weyn ee loo qabo Salah. Ma noqon oo kaliya geesi garoonka dhexdiisa ah, laakiin wuxuu bedelay aragtida dadka isagoo keenay isdhexgal bulsho iyo tusaale wanaagsan oo uu u noqday malaayiin taageerayaal ah oo ku sugan Liverpool. Ma ogtahay Mohamed Salah wuxuu kaloo noqday xiddigii ugu horreeyay ee taariikhda kooxda ee goolal ka dhaliya 9 kulan oo xiriir ah oo uu ku ciyaaray garoonka Anfield xilli ciyaareedkii 2022-2023. Dhacdooyinkan iyo kuwo kale oo badan waxay xaqiijiyeen in magaca Mohamed Salah uu geli doono baalasha dahabiga ah ee taariikhda Liverpool, isagoo garab istaagi doona halyeeyadii waaweynaa ee soo maray kooxda sida Kenny Dalglish iyo Steven Gerrard. Ugu dambeyn, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. Mohamed Salah ma ahayn oo kaliya magac weyn oo soo maray garoonka Anfield, laakiin wuxuu kooxda Liverpool u ahaa astaan iyo halyeey dhab ah oo bedelay taariikhda casriga ah ee kooxda. Goolashiisa mucjisada ahaa, rikoorada uu jabiyay, iyo guulaha uu la qaybsaday taageerayaasha ayaa ka dhigay mid weligiis baal dahab ah kaga jiri doona qalbiyada malaayiin qof ee taageera Liverpool iyo guud ahaan dunida kubadda cagta. Haddaba daawade, aad ayaad ugu mahadsan tahay waqtigaaga iyo la joogitaankaaga ilaa dhammaadka muuqaalkan. Ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo si aysan kuu dhaafin sheekooyinka xiisaha leh ee xiga. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.